maxamed cabdinaasir ayaan le aad baad u mahadsan tahay waxaan subax wanaagsan ka soo leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda u ah dawlad goboleedka Hirshabelle waxaan ku suganahay mid ka mid ah wadooyinka laamiga ah ee ku yaala magaalada Jowhar waxaan doonayay inaan u kurgalo sida ay tahay xilligan magaalada Jowhar haddii ay noqoto dhaqdhaqaaqa ganacsiga kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha magaalada Jowhar bilicda caasimadda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin bulshada ku nool magaalada Jowhar oo ay ka codsanayaan mas'uuliyiinta maamulka dawlad goboleedka Hirshabelle si aan u ogaano aragtida kala duwan ee bulshada ka howlgasha magaalada Jowhar waxa inoo suura gashay in aan aalada telefishinka Universal aan la dhex qaado qaar ka mid ah dadka ka ganacsada gudaha magaalada Jowhar balse waxyaabaha la yaab kale ee cajiibka leh ee xilligan magaalada ka jira waxa ay tahay in bajaajka ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Jowhar xaafadeeda kala duwan oo afarta xaafadood ay ka kooban tahay lagu raacayo 5,000 oo shilinka Soomaaliga ah xilliga deerta ee roobka oo xilligan si weyn uga da'ay deegaano ka tirsan magaalada Jowhar iyo guud ahaanba gobolka Shabeellaha Dhexe waxa la dareemayaa neecaw udgoon oo ku aadan roobka xilliga deerta oo xilligan beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay si weyn u dareemayaan inkastoo Jowhar ay tahay caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle haddana sidii la rabay sida ay yihiin caasimadaha deegaanada maamul goboleedyada Hirshabelle kama muuqato magaalada Jowhar maxaa yeelay dhismaha magaalada oo aan horumarsaneyn jidadkii magaalada Jowhar oo aan wali dayactir aan lagu sameeynin wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee dalka isbedbedelkii dhanka maamulka ahaa ee soo maray gobolka Shabeellaha Dhexe iyo magaalada Jowhar haddaba barnaamijkeena bandhiga telefishinka Universal waxa uu la waramay qaar ka tirsan ganacsatada iyo shacabka ku nool magaalada Jowhar kuwaas oo aragtidooda kala duwan ka dhiibanaya bal sida ay u arkaan waxyaabaha xilligan ay u baahan tahay magaalada Jowhar ha noqoto in lagu soo kordhiyo laamiyo iyo in kor loo qaado bilicda caasimadda dhismayaasha iyo in mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabelle ay isku dayaan sidii ay Jowhar ula barbardhigi lahaayeen magaalooyinka caasimadaha maamul goboleedyada ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya waxaan la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka howlgasha caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle waxay iiga sheekeeyeen sida ay u arkaan aragtidooda xilligan waxa lagu soo kordhin karaa caasimadda dawlad goboleedka iyo horumarka xilligan la doonayo in magaalada ay ku talaabsato magacayga maanta xasan cabdullaahi maxamuud ali dhaha maanta ganacsiga maanta aad iyo aad ayuu maanta u socdaa maadaama labadan bil maanta roob da'ay maanta xoogaa gaadiidkii oo maanta magaalada aan soo galaynin marka ganacsi magaalada caadi waaye maanta waa kala socdaa maalmo maanta raashin baa soo galo baabuur badan oo raashin gudaha soo galo marka xaafadiin waxa maanta roob awgeed ayaa la galilaya dhiiqo weey xaafadaha magaalada Jowhar waa caasimadda Hirshabelle ka waran horumarkeeda maxaad isleedahay marka way u baahan tahay inay wallahi horumarkeeda maanta Hirshabelle maanta waxay u baahan tahay maanta in la muhiim maanta in loo dhiso maanta kulli maanta wado fiican ma haysato marka wadooyin ay u baahan tahay ilaamiyaal badan ay u baahan tahay waxyaabo badan maanta in laga qabtay u baahan tahay maamulka ka waran maxaad u sheegi lahayd in horumarkaas aad tilmaanto magaalada lagu soo kordhiyo wallahi maamulka maanta waxaan maanta aan tacsiilay maanta inay magaalada maanta bilceeda ka shaqeeyaan waxyaabaha wasaqada iyo maanta cafaayadaha iyo waxyaabaha xaarka maanta oo meel uu soo daadinayo in laga shaqeeyo maanta dadka loo wacyi geliyo ayaa u baahanahay alxamdulillah ilaahay ma iskale mid kale waxaan nasiib u yeelanay inaan maamul goboleedka Hirshabelle oo caasimad u noqdo degmada Jowhar waxaan ma aragtay hadda ku suganahay xaafadda Horseed waxyaabaha ma aragtay lidka ku ah waxa kamid ah in horumarka la gaaro waxyaabaha hadda lidka ku dhigi karo yaani isku socodkii oo aad u xiran maxaa la dhabihii Muqdisho caasimadda ka soo gali lahaa iyo oo aad u baaba'san magaalka gudihiisa aan wali wax howl qabad rasmi laga helin marka waxa la wali Hirshabelle inaysan gaarin booskii ay gaareen maxaa la yiraahdaa dadkii kale ee maamul goboleedyada dhisteen dadka ugu liitay inay hadda xaaladan ay ku sugan yihiin yaani hadda xaalad roob la jooga suuqadii weynaa ee lagu shaqeysan jiray yaani isku markooda uu adag yahay dhan walba way ka maaragtay ka xayran tahay laakiin hadda amni xaqiisa dii la yiraahdo maamulka aad u wanaagsan yahay wax arqaladeena iyo waxyaabo shil oo tiro badan ma dhaco inta dhiman waa in horumar loo tilaabo inay dhalinyarada istaagaan inay maamulka garab qabtaan marka waxaan rajaynaynaa hadda ganacsigeena joognaa wax culays kuma qabno marka waxaan rajaynaynaa inay isbedel laga helo waqtiyada soo socda haduu Ilaahay yiraahdo kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada ka howlgasha magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle oo barnaamijka bandhiga telefishinka Universal uga sheekeeyay sida ay xilligan ku haboon tahay in Jowhar lala barbardhigo magaalooyinka kale ee caasimadaha maamul goboleedyada haddii aan ku daro intaasi waxa Jowhar ku yaala garoon kubadda cagta ah oo salax lagu ciyaaro taasi oo loogu magac daray Allah u naxariistay xildhibaankii dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Mawlid Macaane Maxamuud
xilliga aan booqanaya garoonka waxaa kubadda cagta ku ciyaarayay dhalinyaro ka timid xaafadda Hantiwadaag oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Jowhar waxay isu balansanayeen in ay garoonka kubadda cagta ee Fosterka ama Salaxa ay ku ciyaaraan xaafadda Horseed oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Jowhar inay ciyaaraan kubaddu micno kuma dhisna laakiin waxa aad u adag in la helo garoon kubadda cagta ah oo dhalinyarada isku madadaaliyaan Jowhar dhalinyarada ku nool ma haystaan shaqooyin ay nolol maalmeedkoodu ay ku dabiraan balse waxay intooda badan ay isugu yimaadaan wadadan laamiga ah ee iga dambaysa kuwaasoo waqti ay ku qaataan markii ay xilligooda dhamaystaana kadib ay xaafadahooda dib ugu laabtaan haddaba maxay tahay aragtida xilligan in la soo kordhiyo garoonka Fosterka waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradii ciyaaraysa kubadda cagta oo iga sheekeeyay helitaanka garoonka kubadda cagta ee Fosterka lagu ciyaaro oo Jowhar laga hirgeliyay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saad Anshar Hussein kana mid ah dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Jowhar aad aan ugu faraxsanahay meesha aan joogno waa garoon roog ah ama coos ah garoonkan waxa uu ku yaalaa xaafadda Horseed waa meesha dhalinyarada iskugu timaado yani xagga sportska ay ku baashaalaan marka aad aan ugu faraxsanahay inaan helno garoon coos ah oo roog ah maadaama aan weli helin garoomadii waaweynaa weli waa iska muxuu ahaa carro waaye halkan waa garoon roog ah garoomadii laba garoon oo Jowhar ku taalo midna waa Horseed midna waa Hantiwadaag midna ma lahan wax roog ah marka waxaan ka codsanaynaa dadka yani ama horumarka sportska jecel in yani ay garoomadii ay keenaan roog waxaan sidoo kale la kulmay Yuusuf Xaamud Jarras oo ka mid ah halyeeyada kubadda cagta ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar waxa sidoo kale Yuusuf uu ka mid yahay dadka isku dayay inay hirgeliyaan garoonkan Fosterka ee loogu magac daray Mawlid Macaane Maxamuud xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya wuxuu iga waramay doorka ay jaaliyada deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku leeyihiin hirgelinta garoonkan iyo waliba in la soo kordhiyo garoonkan kubadda cagta ee Fosterka ee dhalinyarada ay ku ciyaarayaan saujeedaan waa garoonkii u horeeyay degmada Jowhar lagu furay Salax ah ilaa wuxuu furay ilaa dhowr 10 sano hadda hal sano ka hor waa la dayactiray wuxuuna qayb ka yahay horumarinta bulshada isdhexgalka bulshada wuxuuna u shaqeeyaa ummadda degmada Jowhar inay dhalinyarada inay ku ciyaaraan habeen iyo maalin waana wax loo baahan yahay bulshada u baahan tahay marka sidaa darteed garoonkaas waxa sababta u sameeyay waxa waa baahi loo qabo magaalada Jowhar oo ka jirto in garoon Foster uu lahayn kan waa kii u horeeyay oo la sameeyo waxaan loo magac daray heleeli isboortiga degmada Jowhar Mawlid Macaane waa garoonka Fosterka degmada Jowhar ee Mawlid Macaane weli ma muuqato horumaradii kale ee looga bartay Jowhar wuxuu ku jiraa Shabeellaha Dhexe 18 gobol ee caanka ku ah kubadda cagta maxaa isleedahay marka garoomada kale waa qorshahooda uu ku jira insha Allah garoomada kale degmada Jowhar wili waa akiran yihiin sababtoo ah waxaan la soconaa anaga maamulka Hirshabeelle wili ma fadhiyo وزارة رئيس وزراء معنا وزير وحيان ويلي رسمي معنا أو شقي ما لسمينن مركا إلا هذا معنا دور كوب دقمة الجور كنا عيلو عيارايو كاسنا وحكاني قدومها دقمة الجور لأنه لو عقولد عبد قولد وأدوم هذين دور كوب من وقبتي لكن وحنا جم كان تي وينت إمام ملكي هيرشبيل إن شاء الله وحرجينا إن هيرشبيل نسوقار سيز دانتو قعنت اللباد وحنرجينا إن سامي دونا قرون وين أو عقارن أو رجله وحنرجينا إمام ملكي هيرشبيل جاليدا الجوهر دور انتلك بكله inay garoonka hirgeliyaan ما شاء الله جاليدا Hirshabeelle jaaliyada degmada Jowhar waa jaaliyad aad iyo aad boqolkiiba boqol u madcalin waxay ka qaateen sport degmada Jowhar qayb weyn mar walba waxay soo dhiibaan agabkii lagu ciyaar lahay kubadihii qalabkii sportiga marka jaaliyada Jowhar iyo degmada Jowhar sportigeeda waa isku xiriyiin marka waxaan rajaynayaa anoo hadda ka faa'iideysanaa jaaniskan in jaaliyada Jowhar ay qayb qaataan horumarka sport degmada Jowhar nin walba waxa dhisna magaaladiisa dadkiisa marka anaga waxaan haynaa bilow inta dhimo waxaan ka rajaynayaa jaaliyada Hirshabeelle inay dhamaystir ku samayso sportiga degmada Jowhar ayaan leh haddii aan intaasi ku sii daro waxaa iminka hakad ku jira isu socodka gaadiidka wadada u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu ku xiran yahay gobolka Banaadir wadada ka timaada Muqdisho waxay xiriirisaa ilaa iyo magaalada Boosaaso balse markii ay roobka xilligan oo kale ay da'aan waxa aad u adag in la isticmaalo wadada sabab la xiriira isticmaalka wadadani waxa hakad iyo saameynta ugu weyn ku yeesha roobabka xilliga deerta ah iyo guga ee ka da'a gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan dalka Soomaaliya
ganacsiga magaalada jowhar oo u baahan in il gaar ay u yeeshaan ganacsatada haddana xilligan wuxuu samaynayaa wax xoogaa horumara taasi oo loo arko inay tahay ganacsatada ka howlgasha magaalada jowhar oo marba marka ka dambaysa isku dayaya in ay horumariyaan guud ahaanba ganacsiga gobolka gaar ahaan magaalada jowhar markana waxaan dib idinkugu celinayaa wariyahayaga maxamed cabdinaasir ayaale oo ku sugan istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho